تعالى وبركاته. waa idin salaam walaalaha waddan fx. Waxaan rabaa inaan wax yar oo baraarujina ama tala ah aan idin siiyo, taasoo walaalo badan ayaa waxay sameynayaan akoomo ftm oo ay qaadanayaan maxaan ku dhahay aqoontii inay leeyihiin baa laga yaabaa, laakiin mindsetkooda uusan weli si fiican u fadhinin, emotionkooda u xakameysnayn, oo maxaan ku dhahay waxay iska sameynayaan akoon bay ayaga ama jeebkooda ha ka qaataan ama qof kale akoon intay u bandhigaan barnaamijka ha gato oo ha u maamulaan. Marka waxaan rabaa inaan kula taliyo labada qaybtay ahaataba. Haddii aad tahay qof aqoon leh laakiin emotionka iyo mindsetkiisa weli aanan fadhinin, oo trade plan sax aan lahayn, oo emotionkiisa aan controlnayn, lacagtaadana ha iska khasaarinin, qof walaalka oo miskiinana lacagtiisa ha ka khasaarin. Soo waxa garateen ma? Marka hadda waxaan u soo bandhigayo dhibkan hadda qof walaalkeenu ku dhacay, asagana ma lahayn lacagta, qof kale iska lahaa oo akoonku u maamulaya. Marka waxaa fiican haddii adi aad leedahay iyo haddii qof kale lacagta uu leeyahayba, kulley lacagta waxay ka imaanaysaa qof Soomaali oo walaalkeen ah. Marka waxaa fiican in markii aad isku filnaatid akoonkaaga aad ku filnaatid, aad aragtid inaad adiga isku filan tahay oo adiga aad meel isgaarsiisid, inaad dad kale ayagana aad ku dirtid oo meel aad gaarsiisid. Intaas aad ka gaaraysid waxaa la rabaa dulqaad, inaad cilmiga iska adkayso, wax baratid, kadib ayaa waxaad samayn kartaa horumar meesha aad rabtid gaari kartaa. Naftaada markaa aad meel saartid ayaa qof kalena caawin kartaa, laakiin adoo taadii meel saarin tu kale kuma dari kartid. Marka weligaa ha ku fikirin inaad isdhahdid qofkan ka faa'iideyso, waxaan way fudud yihiin. Wax fudud ma jiro, wax walba wuxuu u baahan yahay shaqo iyo howl adag. Marka howsha adag markii aad aqoonteeda yeelatid waxay kula noqonaysaa wax fudud, dhib ma laha markaas. Laakiin inta aqoonta aad ka yeelanaysid ha isku dayin inaad samaysid wax ku sii meel gaar la dhaho. Marka hadda waxaan u soo bandhigaya ma aha xumaan ama inaan qofkan daleeceynayo. Qofka insha Allah magaciisa iyo xogtiisa dhan lama arki doono, laakiin waxa xaaladiisa kaliya la ogaan doonaa, qofku yahayna lama garan doono. Marka walaalkeen waxaan dhahaynaa ma aha inaan ku ceebeynayno oo aan dad ku tuseyno, waxaan ku siinaynaa talo. Akoonkan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan isku dayayaa qaabka ugu fudud ama ugu macquulsan haddii uu badbaadi karo. Akoonka aad buu u dhow yahay inuu dhaco, almost wuxuu ku jiraa 7,200 iyo wax buu ku jiraa meensa. Waxaa u hartay 2,000 kaliya, akoon 100,000 oo ahaa 2,000 oo kaliya u hartay. Ma suurtagalna ma aha. Wuxuu yiri walaalkeen uu islaamay, salaanta waa ka qaaday. Wuxuu yiri waqti badan ayaa akoonkii soo diray. Wuxuu yiri waqti badan ayaa u haray, 7,000 oo meensa ku jiraa oo akoon 100,000 7 beri kaliya ayaan trade gareynayaa. 7 beri ayuu wuxuu ku dhumiyay $7,000. Marka wuxuu dhahay walaal suurtagal ma tahay Yaasir, saaxiib qaali ah, haddii aad awooddo akoonkan wax igala qabo, waa nolosheedii iyo rajadeeda. Marka waxaan dhahay objectiveskiisa sawir, objectiveska uu ii soo sawiray WhatsApp-ku igu soo diray. Wuxuu dhahay niyo daily loss iyo maxi loss midna maanu ku dhicin. Daily loss iyo maxi loss midna maanu ku dhicin, objectiveska caadi waaye. Marka waan u sawir waxaan dhahay kadib waan soo wacay. Marka waxaan tagi doonaa akoonkii hadduu Ilaahay yiraahdo. Saa wada aragtaan hadda waxaan joognaa akoonkiisii, waa aragtaan waa $92,710. waxaa ka maqan 7,200 iyo wax baa ka maqan. Marka qaabku u khasaaray aan fiirino, wuxuu bilaabay akoon 100,000 wuxuu qaatay taariikh bishii 5teedu qaatay, bishaan January aan ku jirno 5teedu qaatay. Trade-ku wuxuu bilaabay 12 maantana waxaa la joogaa almost maanta waxaa waaye 19. waa 7 beri kaliya waxaanu lacag ku dhumiyay. Marka qaabku u khasaaray waa aragtaan, xataa lod weyn muun isticmaalin, lod wan ayaa u badan.
khasaaraha uu galay xataa waxaa u badan khasaaraha 600 oo doolar uu khasaare marka ugu badan waa 700 oo doolar uu khasaare waa marka ugu badan 700 oo doolar uu khasaare 1.7 uu isticmaalay asoo lod yar uu isticmaalay hadsan akoon 100,000 marka loo fiiriyo lod yar uu isticmaalay welina khasaaraha intaas le uu galay maxaa keenaa is dhigi kartaa qofkan waxaa keenay dhibaatada markuu si xaqiiqi ugu warramay oo aan aad u wareystay wuxuu yiri niyo emotionkayga zaid ahaa markii dambe waxaan bilaabay inaan qolyo signal bixiyaan oo price action ku trade gareeyaan si uu sheegayay oo cadaan ah in aan signal ka gatay signalada ii soo dirayeen ayaan saan u galgalayay marka wuxuu yiri signalada way fiicnaayeen laakiin aniga waxaan sameynayay emotionka ka baxbaxay trade-ka marna waa xiray marna waa furay marka totally in signal aad isdhaahdo wax ku kori ama uga faa'iideyso waa khaldan tahay signal inta wax ku korin lahayd in aad inta gacantaada ku qabatid aad ku gubtid ka fiican oo cilmi iyo cashir aad ka baratid marka dadka signalada isticmaalo dhibaatada ugu badan ayaga haystaa qofkii laakiin wax baranayo cilmi ayuu ka baran karaa iyo cashir wixii uu ka khaldama xataa marka waa aragtaan khasaaraha uu sameynayo asoona loo duwan isticmaalayeen 1.5 u badan tahay waxay ahayd maanta ayuu khasaaraha ugu badan galay maanta kali wuxuu galay lacag 4,000 ku dhow uu khasaaray 3,000 hore uu khasaarsanaa marka akoonkii waa kaasa xogtiisa oo dhan marka waxaan walaalaheen ku waanineynaa aan kula talinaynaa in signal ayna qaadan suuqan aqoon uu leeyahay aqoontiisa aad bartid istiraatiijiyad xun ma jirto istiraatiijiyadaha dhan wada fiican yihiin waxaa qof walba suu asaga ula falgalo ula macaamilo istiraatiijiyada u fahmo lacagaha ku fiicantahay u fahmo baagtasin badan u sameeyo naftiisa uu maalgeliyo markasta waa idiin sheegaa waxaan dhahaa intaa akoon maalgelin lahayd naftaada maalgeli hadda akoonkan inuu badbaado way adag tahay xag alla laakiin waxba kama aha waa aragtaan waxaa u dhiman 2,700 kulleeba insha allah wax walba waa la samayn karaa waxaan isku dayi doonaa in aan ilaahay dartii ugu badbaadiyo si walaalkeen meesha uuna ugu ceeboobin hadduu badbaadi waayana waa u sheegay in akoonkan inay badbaadi adag tahay hadduu badbaadi waayana uu ka samro qofkaasna insha allah uu kulleeba qaabka ula macaamilo iyo kulle way fahmi doonaan khasaare ka badan intaana la galaa akoon 100,000 oo 600 iyo wax yar joogo waxa ma aha ka badan la khasaaraa marka intaan waxaan idinku soo gudbinay maxaa waa inaad ka barataan cilmi iyo cashir qof kasta inuu wax fududeysanin waxaan markaa baratid ayaa waxa rabta ka sameyn kartaa marka hore horta wixii baro waxaad aqoonin waxba kama sameyn kartid hana isku dayin inaad signal FTM inta ku gudubtid ama akoon aad ku maamulotid ama aad lacag ka sameysid ama aad taajir ka noqotid waxa Soomaalidu xukumaha maahan biyo sacbadaada looga dhargaa waxa saas loo leeyahay intuu qof sacabkiisa ku dhigo biyo kama dhargeysid adiga wax baro adaa horumar gaarsiin karo waxaan rajeynayaa insha Allah inaa cilmi badan ka faa'iideen iyo cashir walaalaha ayagan dhibaatada haysato oo signalada isticmaalo si gaarsiisiyo cashir ugu noqdo idinka waa mahadsantihiin channelka YouTube insha Allah subscribe saara groupkoodana FX ku soo biira qofkii caawinaad u baahan intaan awoodno insha Allah waa caawin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh intaada falin ka fiirso waxaadan aqoonin ha ku degdegin lacagtaada inaa FTMO siisid waxa faa'iido noogu jirta anaga marka adna faa'iido kugu jirto walaalayaal waxaan ku la talinayaa inaa cilmiga barataan kadib ayaa waxa rabtaan sameyn doontaan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi